kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim. Xafiiska qaxootiga oo la xidhayo dacwo ku saabsan taariifada, maalgelinta beeraha iyo weliba istandhaafinta daroogooyinka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. daawadayaal maanta waa maalin Jimcaha bisha Mayna ay tahay 2 waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamuud Xasan aatanna kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. Xafiis qaxooti oo la xidhayo. Hay-adda samafalka Katoliga Maine ayaa toddobaadkii hore waxay ku dhawaaqday inay joojin doonto barnaamijyadooda dibadejinta ee xafiiska qaxootiga ee Bangor xagaagan. hay-addu waxay sheegtay in jimcihii sheegtay inay xidhi doonto xafiiska adeega qaxootiga ee ku yaala Bangor marka la gaadho bisha Juun 30keeda. barnaamijyadeeda kale ee goobta Bangor way sii socon doonaan. xafiisyada adeega qaxootiga ee koonfurta Maine iyaguna sidoo kale way sii furaan doonaan. hay-adda Catholic Charities of Maine ayaa sababihii xiritaanka waxay ku sheegtay inay yihiin maalgelinta federaalka oo la waayey iyo weliba joojinta maamulka madaxweyne Trump uu joojiyey dibadejinta qaxootiga. ma jiraan dad cusub oo la keenay tan iyo 13 bishii Janaayo ee sanadkan, waxayna hay-addu dhammaystirtay 90 maalmood ee adeegyada dibadejinta ee dhammaan macaamiishooda aaggaas. dacwad ku saabsan taariifada ama canshuurta laga qaado alaabta dibadda laga soo dejiyo. Maine ayaa waxay ka mid tahay 10 gobol oo maamulka madaxweyne Trump ku dacweeyey siyaasaddiisa ku saabsan canshuuraha alaabta dibadda laga keeno. dacwadda ayaa waxay ku doodeysaa in madaxweyne Donald Trump uu ka tallaabsaday awooddiisa madaxweynenimo oo uu soo rogay canshuuro alaabta dibadda laga soo dejiyey isagoo maraya awaamiir fulineed iyo baraha bulshada iyo weliba amarada wakaaladaha. dukumentiyada maxkamadda loo gudbiyey Arbacadii ayaa waxay sheegayaan in ficilada Trump ay ka tarjumayaan siyaasad ganacsi oo heer qaran ah oo ku salaysan rabitaanka madaxweynaha halkii ay ka ahaan lahayd siyaasad iyadu loo marayo awood sharci oo si hufan looga baaraan degay. isbahaysiga ayaa waxay ka codsanayaan maxkamadda ganacsiga ee caalamiga ee Maraykanka inay joojiso canshuuraha lagana ilaaliyo in maamulku uu fuliyo. maalgelinta beeraha. sharci dejinta gobolka ayaa waxay ka fiirsanaysaa sharci lagu doonayo in lagu caawiyo beeralayda ay saameeyeen dhimista maalgelinta ee dowladda federaalku. sharcigani waxa uu wax ka bedeli karaa barnaamijka amaahda beeraha ee gobolka si loo markaa bixiyo maalgelin haddii ay dhacdo deeqo ama deyn federaal ah oo la waayo. xildhibaanada ayaa waxay sheegeen in hadda lacag ay weli ku jirto sanduuqa iyo haddii dib loo qeexo waxa loo isticmaali karo lacagtaasi ay yarayn karto culayska ilaha kale ee dhaqaalaha. waaxda beeraha ee Maraykanka ayaa waxay baajisay malaayiin dollar oo deeqo iyo deymaha oo ay siin jirtay beeralayda gobolkan Maine bilihii lasoo dhaafay. istandhaafinta daroogooyinka. Portland ayaa waxaa dhowaanahan lagu arkay kor u kac ku yimid daroogada la istandhaafinayo. waxaa jira 43 jeer oo si xad dhaaf ah loo isticmaalay daroogo, 2 ka midana lagu dhintay tan iyo bishii Abriil 10keedii sida ay sheegtay waaxda booliska ee Portland. saraakiisha caafimaadka ee magaalada ayaa waxay sheegayaan in ay rumaysan yihiin in qiyaasta xad-dhaafka ah ay keeni karto daroogooyinka oo wasakhaysan ama wax lagu daray. magaaladu waxa ay si joogto ah u arkaysay hoos u dhac ku imanayay daroogooyinka la istandhaafiyo intii muddo ah. daawadayaal halkaad nagala socoteen waa Maine Public News Connect. intaasi sarag dambe. wasalaamu calaykum waraxmatullah.
waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Ku iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan isu soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wadajir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ogsoonahay in lahaanshaha guryuhu ay yihiin furaha horumarka. barnaamijkayaga iibsiga guriga ugu horeeya waxa uu leeyahay deyn dulsaar hooseeya leh iyo kaalmo lacagta horumariska ah ee guryaha qolalka badan leh. faahfaahin dheeraada ka ogow mainehousing.org. waxa aad isbarbardhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Maine Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir maine.gov/apprenticeship.